Garabonax maanta halkan waxaan ku hayaa buugga run sheeg ee uu qoray Dr. Suldaan Maxamed Suldaan Ibraahim Saciid oo loo yaqaan Suldaan Garyare. buuggan wuxuu ka qoray magaca ujeedaan oo ah Xaaji Cumar Jaamac Biyoole. waa xog waran uu uga hadlayo xaajigu waxyaabihii goobjooga u ahaa. buuggu waa laba qaybood. qayb ka mid a waa qaybtaas, qaybta dambena waa xaajiga oo ka soo jeedo qoys beeraley ah. aqoontiisii beeraha Soomaalidii hore uu ku soo bandhigay. xaajigu waxbarashadiisa hoose wuxuu ku soo qaatay gobolka Awdal Boorame, tiisii dhexe Hargeysa ku qaatay, tiisii dambena Muqdisho ku qaatay. waxa uu soo shaqeeyay hay'ado kala duwan Soomaaliya, laakiin xogtan uu ka hadlayo waa dhaqaalaha wax ku saabsan oo ku saabsanaa shaqadiisii ugu dambeysay oo bangiyada ahayd. haddaba xaajigu wuxuu qabaa aragti in badan aysan qolooyinkan siyaasiyiinta ama qolooyinkan Soomaaliya faaqida arrimaheeda aysan ka hadal. aragtidaasoo ah in burburka siyaasadda Soomaaliya uu ka horeeyey burburka dhaqaalaha. burburkaasoo uu laba waji u yeelay dhaqaalaha, mid bannaanka ah oo gacan shisheeye ku xiran, iyo mid gudaha oo xilligii taliskii kacaanka oo kale sababsatay aqoon darro ama xirfad la'aan xagga dhaqaalaha ah. haddaba buuggan isagoo taa daliishanaya ayuu wuxuu isku dayayaa inuu iftiimiyo dhacdooyin uu goobjoog u ahaa oo ay ugu horeyso laba dhacdo labadaba uu asagoo goobjoog u ahaa, daliilna u noqonaysa aragtida ah burburka dhaqaalaha siduu u xasmo. labadaas dhacdo haddaba waa dhacdooyin u baahan cashar in laga qaato, oo taariikhda sideeduna waa cashar. wixii shalay dhacay inaan lagu celin, darsiga in loo haysaa. haddaba dhacdooyinkaasi maxay ahaayeen? sidaan idiin sheegay, buuggu wuxuu xoogga saarayaa burburkii dhaqaalaha waddanka ku yimid. wuxuu xusahayaa xilligii kacaanku uu dhalanayo waddanku inay ka jireen 14 warshadood. 14ka warshadood ma ahan wax Soomaalidu lahayd, wax dowladdii Talyaaniga oo kale ama ganacsato ama adugu waxay ahaayeen 14ka dowladood oo barkood ama badankooda uu leeyahay shisheeye ama dad shakhsiyaad Soomaali ah. xilligii kacaankuna warshaduhu waxay gaareen 36 meesha 14 ahayd. waxaa kaloo nasiib darro ah warshado qaarkood inay fariiseen. wuxuu si gaara u xusayaa warshadaha fariisay, warshadii sonkorta oo kale. taariikhda marka aan ka baranayno buugga waxaa ka mid ah warshada sonkorta in Soomaaliya laga aasaaso. waxaa sabab u ahaa gumaysigii Talyaaniga oo Eritrea deganaaba wuxuu go'aansaday inuu Eritrea ka sameeyo warshad sonkor. waxa uu dad badan oo Eritrean u qaaday Talyaaniga si ay u soo baro xirfadda abuurka ama ka shaqaynta qasabka iyo warshadaynta Soomaaliya. dadkii markuu soo ceshay mashruucii markii laga bilaabay Eritrea, waxay noqotay in biyihii Eritrea oo dhanaan noqday aysan u cuntamayn in sonkor laga sameeyo. taas markay timid baa waxay noqotay in Talyaanigu uu u soo wareejiyo dhinaca Jowhar. usoo wareejintii Jowhar waxa ay la socotay in dadkii uu tababartay oo Eritreanka ah uu ayagana soo kaxayso. warshada
sokorta jowhar sidaasay ku aasaasantay dadka ka shaqeeya xirfadda ah oo Talyaani uu keensada u shaqeynayna waxay ahaayeen Eritrean shaqada markay ka baxaan dhulka waxa laga siiyay Soomaaliya inay beero ayagu shakhsiyaad ah ay leeyihiin ay qortaan marka warshadii noocaas ahayd kacaanku markuu dhashay ololihii fartiga ay soo baxday waxaa dhacday in warshadihii la qarameynayay shaqaalihii Eritreanka ah shaqadii waa laga bedelay iyadoo loo daliishanayo inay qoraalkii iyo akhrintii Soomaaliga ay ku dhaceen shaqadii waa laga wada saaray waxaana lagu bedelay shaqaale Soomaaliyeed qoraaga xogta uu bixinayo Xaaji Cumar oo uu noo soo gudbiyay qoraaga Suldaan Garyare waxay oranaysaa warshadu waxay samayn jirtay wax u dhigma 20,000 oo kintaal oo kale xilligii Soomaalidu la wareegtayna waxay noqotay 2,000 inay ka badan weeyeen ayadoo aqoontu aysan meesha ool qasabkii soo baxay oo la soo jiray sidii buu u imaanayaa wixii warshadiina waxayba noqotay goobtii in ay ka shaqeyn waayeen dadkii Soomaalidu hawadii oo dhan ay pollution ka dhigaan adigu way xirfad ahaan way wadi waayeen warshada wuxuu sheegayaa Xaaji Cumar in markii dambe loo soo bedelay Dr. Cali Khaliif Allah naxariisto Cali Khaliif markii loo keenay wuxuu darsay waxa meesha ka jira wuxuu arkay in loo baahan yahay shaqaalihii xirfadda u lahaa wuxuu codsaday in la soo ceshiisay waa loo diiday waxa la yiri waa ma dhacayso in dadkii Soomaalida la qoray la bedelo haddana mar labaad waxa kale oo la keenay nin kale oo Cali lagu bedelay asna isla mowqifka Cali uu soo istaagay waxa jirtay uu leeyahay marka xaruntii wakaaladda ganacsiga Soomaaliya oo madax u ahaa General Jaamac Muuse oo loogu wareejiyay in wax soo saarka waddanka oo dhan la hoos geeyo wakaaladda ganacsiga asagoo Xaaji Cumar u daliishanaya aragtida shuuciga oo Joseph Stalin ninkii la oran jiray oo qabay oo ahayd eygaagu si uu kugu baahdo waa la gaajaysiyaa buu aragtida noocaas ahayd bay qaadatay dowladda kacaanka oo shuuciga ahayd buu leeyahay oo ah in ma aragtay wax walba dowladdu gacanta ugu dhigto si ay dadku ugu baahdaan aragtidaas iyadoo la qaadanayo warshadii waxa la hoosgeeyay sokortu inay la wareegto waxa dhacday marka sonkor la'aan inay waddanka ka dhacdo Generaalku wuxuu soo jeediyay in 60,000 oo tan sonkor ah ay dalbato Soomaaliya weli wuxuu soo helay shirkad bangi laga leeyahay Ingiriiska oo Midland la oran jiray saldhigiisuna uu ahaa waddankan la yiraahdo Singapore buuga wuxuu ku sheegayaa waddankaas in xilligaasi ay ganacsatada iyo dhiilalka suuqa madow oo dhan lagu fulin jiray xilligaas marka bangigii Soomaaliya madaxdii bangiga Soomaaliya oo agaasimayaal kala duwan oo madaxii bangiga oo ahaa Dr. Cabdiraxmaan Nuur Xuseen ragii chef oo kale nin kale oo xusahayo Shariif Zayn oo kale oo kaydka ahaa adigu ragii odayaasha bangiga 4 nin oo ugu sooreysay agaasimaalka ah waxa isla garteen inuusan socon karin deelkani oo aan Midland banka oo ku yaala saldhigiisu ahaa Singapore iyo sonkortan aan la aamini karin waxa sidoo kale uu leeyahay waxa soo dalbatay ganacsada Soomaali ah oo ka xusahayo Xaaji Unlaaye iyo Jabdi Xuseen oo kale inay sokorto keenaan waa loo diiday uu leeyahay adigu meesha aan raba inaan buuqa xusayo waxa weeye Generaalku wuxuu u tagay madaxweynaha waddanka wuxuu u sheegay in qolooyinkan bangigu hor istaageen waddanku sonkor la'aan yahay sonkortaasna uu rabo inuu keeno lacagtana loo fasaxo
xaaji cumar wuxuu leeyahay bangiga IMF xilligaas waxaa noo yaalay lacag u dhiganta 249 milyan oo waqtigaas 1974 1973 marka lacagta inta kaydkii noo yaalay 60,000 oo tan marka uu dalbanayo waa inuu dhigo waxa dhacday buu yiri in loo ogolaado Shariif Sayn oo kale oo kaydka madaxii kaydka bangiga ahaa wuxuu codsaday warqad qoraal inuu Siyaad Barre laga keeno si uusan hadhowday wixii ka yimaada aan loo raacin haddaba tiba dhacday qoladii Singapore iyo laga sugayay sokorta 60,000 oo tan waxay soo saareen markab 6,000 oo tan meeshii 60,000 oo tan ka ay 6,000 oo tan markabkaasi haddana waxa kaaga daran ma ahayn markab inuu socdaba oo xamuul uu galo ma garanaysaa safarkan hadduu kala ama soo laaban karin dekada Berbera ka soo degay asagoo 60,000 oo tan wada dowladda Soomaaliya oo dhan waxay ku noqotay yaab wixii laga digahayay bayna noqotay meeshaas dowladda Soomaaliya laba dhaawac ba ka soo gaaray intaana dhaawac cusub 13 nin oo markabka waday iyo 60,000 intii laga dajiyay ayagiina xarig lagu xiray oo waxa laga yeeyay Muqdisho 3 sano u xiraayeen oo shirkadii iyo markabka lahayd iyo waliba insurance-kii kamaniga oo loo dhiska oo isla wadankan ah dowladda Soomaaliya dacwo ku furay ilaa dhowr iyo 20 sano dacwadaasi socotay markabku wuxuu ku degay Berbera markuu meeshuu ku degay Soomaaliya marka waxa ka soo gaaray waa markii ugu horeysay 249 milyan oo kaydka u yaala iska daayay deyn bay gashay Soomaaliya arag oo ku saabsan markabkan dadkii la xiray wax reed aan loo hayn dacwada ma garanaysa markii ugu horeysay aan deyn galno waxa soo dhan waxay ku yimaadeen khaladkaas ma garanaysa ragga ciidanka ay galeen sidoo buugu ku qorayo leeyahay marka dhacdadaas oo kale waa 10 muujinaysa khaladaadka aqoon darrada ku dhacay taa marka laga gudbo wuxuu sheegayaa warshadii karo sonkorta warshadii hilibka Kismaayo kale warshadaas oo Raashiyaanka uu gacan ka geystay sameynteeda warshadaas wuxuu leeyahay 1973 dagaalkii Masar iyo Isheeg Masar iyo Israa'iil oo kale dowladda Soomaaliya halkaas waxay uga dhoofin jirtay warshada hilibkeeda dowladda Masar ciidanka Masar ayadoo wax qarasha aysan ka soo galay sidoo kale warshada hilibka ka soo baxo dhan waxa qaadan jiray dowladda Raashiya oo waxay u qaadan jireen gawaarida iyo hubka dayactirka gawaarida oo ay Soomaaliya ugu deeqayeen bay meeshii lacag la'aan waxay qaadan jireen warshada hilibka waxa ka soo baxay warshadu sideedaba marka waxay noqotay midaan aan wax profit aan sabab wax faa'iido aan sameeyay in wax ay soo saarto la qaato ma ahan markii la isku dayay in la xisaabtamo ciidamada oo kale oo la yiraahdo Raashiyaanka intee keentaan alaabo intee waxayseen mar walba waxay soo qorayeen warshada wax soo saarkeeda qalabkay bixinayeen oo ma gawaarida ama fatuuradaha ama dayactirta qalabkan ma aragtay dayactirka loo keenay ciidanka marka warshadu sideedaba ma soconay wuxuu xusayaa warshadaha qaar ayadoo laga duulayo aragtida ahayd ma garanaysaa aragtida ahayd eygaaga waa la gaajaysiyaa si uu kugu baahdo buu adeegsanayaa wuxuu leeyahay dowladdu waxay samaysay in warshadihii waddanka oo dhan Muqdisho la iskugu keeno wuxuu tusaale u soo qaadanayaa warshada Taraqa oo ay ahayd in laga dhiso Berbera oo kale waayo dhagaxa baaruud laga samaynayo Taraqa laga samaynayo dabka dhalinaya wuxuu ku badan yahay xagga warshada intii laga soo wareejiyaa waxa la keenay Muqdisho qolooyinkii mashruuca bixinayay oo World Bank oo kala marka wuxuu xusayaa inuu turjubaan u ahaa ninkii madaxii World Bank oo la kulmayay madaxweyne ku xigeenka waddanka oo ay weheliyaan raggi golaha sare qayb ka mid ah sida Ismaaciil Cali Abubakar Axmed Ismaaciil iyo Muuse Rabiilo
saddexduba waxay ka soo jeedaan waqooyi marka lagu daro qoraaga buugga laftigii qoraaga maahane cumar jaamac biyoole oo xogtan buugga laga qoray run sheeg ninka bixinaya turjuwaanna ah ninka afraad oo ka soo jeeda waqooyi baan ahaa buu leeyahay su-aashii ugu horreysay oo la weydiiyey markii wadahadalka warshadaha iyo sidaas qaabka waxaa la weydiiyey madaxweyne ku-xigeenka maxay ku dhacday in warshadihii caasimadaha waa laga fogeeyaa warshadaha aad iskugu keentaan caasimadda wixii warshadaha madaxweyne ku-xigeenka wuxuu intuu sidaa u fiirshay wuxuu leeyahay gobollada waqooyi inaan waxgeyna ma rabno mogto aragtida marka uu sharaxayo cumar wuxuu ku sharaxayaa falsafadaas Joseph Stalin uu lahaayoo ah eygaaga waa la gaajaysiyaa si uu kugu baado biyaha wax u siisid bay aragtida dowladda qaadataa waxay ahayd in wax walba muqdisho la iskugu keeno si dadka oo dhan ay halka iskugu yimaadaan dowladduna ay sidaas u haanato dadka marka cumar wuxuu leeyahay hadalkaas oo kale markuu madaxweyne ku-xigeenku leeyahay ma ahayn nacayb gobollada ah ama dad qaar loo waxaynayo laakiin waxay ahayd aragtida noocaas ka duulaysa buu u turjumayaa waayo wuxuu daliishanayaa in ragga goobta la fadhiyo oo golaha sare kacaanka laftigooda ay aaminsanaayeen isla aragtidaas maadaama ay gobollada waqooyi ka soo jeedeen inta saddexda nin oo xusay oo buugga ku xusan oo ismaaciil cali abubakar iyo axmed ismaaciil iyo muuse rabiilagood iyo isaga laftigiisa xaaji cumar marka buuggan qaybta dambe wuxuu ka hadlayaa aqoontiisa beeraha oo nin beeraley ah oo qoys beeraley ah inuu ka soo jeeday gobolka awdala marka wuxuu xusayaa qaabkii hore oo ay beeraha wax loo beeri jiray qalabkii hore oo la adeegsan jiray aqoontiisa beeraha waa xirfad aad loogu baahan yahay weeye laakiin tan hore wuxuu tusahayaa burburkii dhaqaalaha ama inuu ka horreeyey kii siyaasadda anigu waxaan ku jeclahay buuggan marka aan ka gudbo xaaji cumar jaamac biyoole siduu wax u qoray uu u soo xigtay qoraaguna uu u soo gudbiyey waxaan ka faa'iidaa qaladaad marka laga hadlayo qaladaadku waa inay yihiin kuwo dhacay looguna talagalay maanta markii naloo sheego qaladkaasaa dhacay sidaas u dhacay berri hadduu soo laabto waa in waddo kale la qaado marka taariikh ahaan way noo fiican tahay laakiin dadka qaar baa marka la soo gudbiyo dhacdooyinka taariikhiga waxay ka fiirinayaan shakhsiga la xusay ama hadday xubnihii dowladda noqoto ama soomaad arag ayagoo isla markiiba qaladka ka dhigahayo qofka qaladku dhacdadu way dhacdaa qaladku waa dhacdaa cashar baa laga bartaa anigu waxaan jecelahay inaan xuso dhacdada qofka matalahayana macna ii samayn maayo qof walba ha ahaada hadduu rabo laakiin dhacdada haddaan aan la xusin dee waxba lama sixi karo qaladaadka maanta yaalla waddanka lama sixi karo haddaanan kuwii hore wax layska weydiin marka buuggan uu qoray doctor suldaan garyare waa buug runtii xog aad u muhiima uu ka reebay xaaji cumar jaamac waa ninka sawirkaas leh marka buugga intaasaan kusoo gabagabaynaya ciddii rabta suldaan garyare ay kala xiriir ka dhaawo haddaad rabtaana ana iisoo waxayn kadhaa buugga waxaa daabacday shirkadda ciid publishing baa daabacday oo aan anigu madaxda u ahay marka intaasaa maanta soo qaadana maca salaama